waata daawadayaal soo dhawaada sida la socotayba akhbaaraadka dhanka suuqa kala iibsiga aad ay u kulul yihiin bishii June iyo July iyo maanta aynu ku jirno 5 bisha Agoosto ilaa ay September ay furnaan doona afarteeda waa suuq kamid ah suuqyada ugu dheeraa laakiin waxa moodaa ciyaaryahanada ugu targetka badan ee kooxaha weyn isku haystaan waxa kamid ah Benjamin Sesko 23 jirkan reer Slovenia kooxdiisa RB Leipzig 100 milyan oo euro ay dul dhigeen waxa ugu dambeeyay waxa uu daawacay Fabrizio Romano in kooxda kubadda cagta Newcastle ay geeyeen 8 milyan oo kaasha iyo 10 milyan oo gadaal lagu dari doono oo dhanka gunooyinka ah laakiin ilaa hadda wax jawaab laga helin sheekada la yaab kale waxay tahay in kooxda kubadda cagta Manchester ay la hadashay mid kamid ah wakiiladooda iyo dadka indhayaasha dhanka suuqa kala iibsiga oo ahaa shakhsigii ka dambeeyay in ciyaaryahankan uu yimaado kooxda RB Leipzig marka waxay u sheegeen waxay ku dhaheen qiimaha ay ciyaaryahanka Newcastle ay gaarto anaga noo soo sheega anagana waa kordhinayna laakiin ilaa hadda 8 saacadood ay ka wareegtay marka warbixintan duubeeno Manchester waxba laga ma hayo telefoonka miidansadeen maadaama lacagtii 100 ay ku sii dhowdahay sida darteed waxa moodaa Manchester isaga baxday tartanka oo Newcastle ay ku soo hareen jawaab waxa laga sugayaa oo kaliya ciyaaryahanka waxaana hadda cadeynaysa in naadiga kubadda cagta Newcastle oo reediba personal agreement ay la sii galeen ciyaaryahankan uu noqon doona bedelka Alexander Isak kooxda kubadda cagta Newcastle iyo kooxda Idahow ayaa isbedel dhaba xilli ciyaareedka la imaan doonta موبايلكaaga ka daawo ciyaaro iyo filimaan adigoo adeegsanaya abka Daawo TV fadlan la xiriir lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda